موضوع وحا يوسو جيدين أو كلا وينو فرفوريا مختار حسن ميراني أو موضوع كفلي يعني وحاجة توسع أو يسوي استقاحية مركا ومختار سويتشي يوم بدو هايستو وصل دقيقة waxaan u gudbaynaa falanqayn aan ahayn su'aalihii jawaabteeda isku celcelinaya ka yaagtee falanqayn dhamaystiran oo mawduuca maadaama uu iba furayo mukhtaar inta kalena inuu sii wadi doono ma rabo inaan hadal badan micno waxaan toos ugu soo dhaweynayaa mukhtaar iyo dowladnimada casriga iyo nidaamka qabiileed ama beeleed ma la iswaafajin karaya mukhtaar kusoo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحنا قرأنا هالنقبل لنا سوى جهدنا واحدة برارب يو عبد العزيز كارهان نبي وصلنا هذا مرة معنا وكراه. وحي أحد ما أنت مرة وحي لقيت لك وقتي صدق سنوك في الجبال مقال قريب نوعاً وكالية waxaa la yidhaahdaa show tolwa tolane marka haddaad google garaysaan waydun arki doontaan wax badan oo aan maanta ka hadli doono waxaa laga yaabaa qaybo ka mida inaan halkaa kasoo qaato iyo qaybo kale oo dheeraad ahba inta aanan mawduuca gudagelin waxaan rabaa laba maalmood oo Soomaalidu iskugu maahmaahdo inaan ku bilaabo beri ayaa waxaa la yidhi shinni baa duntay dabeetana dadkii baa ka dabatay shinni maxaa helo waa la maslaxay waa la soo celiyay ninkii duqsi baa maqlay in shinni oo duntay sidaa looga dabatagay oo la tabay dabeetana isana uu duntay cidiba way ka dabatagay sheeko labaad oo isla shinnida ku saabsan baa jirta oo tidhaahdaa حون بالي شنية واحدة وجهنا يصوم مرض حسيت وصميصة دبلت هذا واحد اللي فرتها بيسوق هذا كتير كان يقول مستقبل إلى ما تروح حكومة قي هذا هذا نك وده قاعد سيدو ملك سبيله لما راح سيبنا نقول حريرة الموضوع أنا دبينو أيام خلاص والله قندنا دي إلى هاي الأمر iswaafajinta dowladnimada casriga iyo habbeeleedku ma suurtagal ma tahay waxaan leeyahay su-aashaaba horta adag qofku inuu su-aashan isweydiiyo waxay uga baahan tahay inuu in badan ka tallaabo beriba culimo ku murantaa layidhi findhaqanku ma xaaraan baa mise waa xalaal waxayna ilkaha kaa gala dadka soo saarto meelaad untaa ma kuwa xaaraan ma mise waa kuwa xalaal soo hadalqaadkeeda xaaraanba sheekh loo tegay laga hayo soo hadalqaadkeedu innaga aad buu inoogu adag yahay su-aasha marka waxaa tallaabo muhiima ah in horta laba soo hadalqaaday waxa adkaynayna waxaa ugu muhiimsan suugaan ahaan diin ahaan iyo wixii aynu soo joognay nidaamkeena dugsiyada intaba suugaanteena waad xasuusataan cabdillaahi suldaan timcade qoraahdii dugsi malaka biyaaladi waxay dumise mooyaane gaariya waad xasuusataan uf qabiil anaa wuxuunbaa ku adeegtay nin iskii kartidiisa isagoon cidna taageersan isku taagi karaynin una haysta ateero ayaa intuu dembi geystana laga hoos gala eeda mar kale gaariya wuxuu ku tusaaleeyaa sida isku qaban laayihiin dowladnimada casriga ah iyo markuu ka hadlayo nidaamkeena qabaniga allah yarxamo wuxuu tusaaleyn jiray geela siday dadku u wada lahaayeen tolku u jireen dabadeetna kursigii dowladdu siduu u noqday geel qolba cidda ku fadhidaa ay reerkoodu leeyihiin oo u noqday ayuu ku tusaaleynay xagga diintana هذا كان وحى للناس ودريش رايدي سورة الحجرات وجبت يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
culimadu inoogumay darin marka la is aqoonsado maxaa ka ratibmaya su-aasha ugu muhiimsanna wey marka lagu aqoonsado oo muwaadin somaliland inaad tahay waxaa ka ratibmaysa inaad xil dalka ka qaban karto waxaa ka ratibmaysa inaad cashuur lagu leeyahay waxaa ka ratibmaysa xeerarka dalku inay kugu waajibayaan waxaasoo dhan baa ka ratibmaysa laakiin litacaarafoodaas inoogumay darin waxaa ka ratibmaya waxaan kale oon si fiican laynoogu sharxin dastuurkii madiine laftarkiisa nebigu sal alla alay wasalam heshiisyadii uu bilowgiiba madiine ku galay waa cahdigii madiine ka loo yaqaanabaa ka mida cahdigaasi wuxuu sheegayaa reer hebel matalan waxay magta u bixinayaan sidoodii reer hebel waxay isku xukumayaan sidoodii marka labadu halka ay ku kala joogaan goorta ay qabyaaladu qurunka tahay iyo goorta kale ee magaranaysa wax ummad lagu dhisa ay tahay sidii loo kala saari lahaaba malahay laga qabto farsamo aada u sarreysa maxaa ka dhashay wacdigaas iyo suugaantaas iyo isdugsiyadana dawaynu usoo wada joognay maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay tusaale ahaan bardhawey annagoo kanada joogna ayaa inaan aanu asxaabnahay la soo hadlay wuxuu igu yidhi waxaan maqlay dalkii waa nin aada u niyad wanaagsan aada u firfircoon niyad badan dalka haya waqti badanna dhulka ugu dambeysay waxaan u maqaalaa buu yidhi dalkii in qabiil wadooyinka loo dhisay maxaa ka jira su-aal baa bacdi waxa ku hadda qabiilada wadooyinka loo dhisayaan oyna inoo diidan inaan maqno maxaa ku jira hadduu qabiilku leeyahay wixii reer hebel unbaa halkaa soo mari karo waddadaa imika gobolka reer hebel unbaa mari kara haddii la leeyahay waa gooni laakiin haddii magac qabiil lagu dhisay oy reer hebel dhiseen cidna ayna ka ceshanayn maxaa ku jaba ma ayaan weydiiyey halkaa kamaba eegin laakiin waxaa uu walaaci gelisay reeraha wadooyin dhisan waxayna tusaysaa halka aynu ka marayno arrinta yani inaan su-aalba ka keeno waxaa intaa igeliyey waxa weeye sida ay u adag tahay qofku inuu su-aal iska weydiiyo iswaafajin ama halkee looga gudbi karaa su-aashan sida ay noogu adag tahay laakiin bal ka waran haddii waktigu nagala xishoon waayo iminka tusaale ahaan waxaynu aragnaa xisbiyada oo kale had iyo jeer markaynu arrinta xisbiyada ka hadlayno waxaan idhahnaa xisbiyadani waxay soo nooleeyeen qabyaalada ma xisbiyadaa soo nooleeyey qabyaalada dhimatay mise qabiiladaa macno u sameeyey xisbiyada su-aashaan u baahannahay inaan isweydiino waa taa dadku waxay ku kala doontaan reerka iyagu halkan buu ku jira inta ugu badan reerka iyagu halkan buu ku jira hebel baa reerkayga anaga matala hadday sidaa tahay xisbiga wax macno u yeelay waa qabiilka qabiilku xisbigu macno umuu yeelin qabiilka waayo sidaa darteed ma waxaynu qaramaynaa shaksiyaad mise qabiil ma qaramaynta qabyaaladaynu bilownaa mise imika inta ugu badan ay dareennaa waxa weeyaan in la qabyaaladaynayo qaabka waxa u badan ay ka cabanaa waxa weeye waa qabyaaladayn qaab horeynu u qaramaynay oo waynu arki doonaa dhacdooyinkii hore soo dhacay sida hubka dhegista iyo wixii oo dhan waxay ka mid ahaayeen qaababka qabiilkii hubka looga dhigayay ee qaranka loogu darayay qaramayn qabiil ayay ahayd waayo waxaan moodaa qaran iyo qabiil iyo inaan u kala gooshayo si aada u badan marka u horeysa waxaan u baahana iyaga laftarkooda bal horta inaan sharaxno iyo qabyaaladi maxay tahay waa maxay qaran haddii la isweydiiyo ku horeyno xagga sare aan kasoo bilowno qeexidiisu horta wax aada u dhib badan dhibtiisuna waxay ka imanaysaa waa wax salka ku haysa aragtida aad ka qabta qaranku waxay saameynaysaa sida aad u qeexayso qaranka marka waa meelaha matalan culimada muslimiinta ah iyo dad badan oo siyaasadda casriga daraasayaana ay ku kala duwanaadaan noocyada markaa qaranka aynu gallabaynu arki doonaa haddii aan laydhaa laakiin matalan haddaynu soo qaadano Max Weber oo ah sociologist
isagu wuxuu ku macnaynayay inuu yahay urur qaranku qaab urur ah oo khasab ah oo la dowlad dhexe oo xoog ku haysata dadka xooggaasina uu ku yimid si gar ah marka ama ha noqoto gartaasi mid loo soo daliishanayo nidaam diini ah ama ha noqoto mid loo soo daliishanayo nidaam kale oo dhaqan ah ama taariikhdu halkay waqtiga ahaan ay dhigtay ha noqoto intaasoo markaa xukunta dhul cayiman had iyo jeer waxaynu aragtaan oo markaynu qaran qeexayno lagu qeexaa heshiiskii Montevideo Convention on Rights and Duties of States heshiiskan 3 shuruudood oo asaasi u dhigayay inuu jiro dad sugan oo leh dhul iyo dowlad dhexe oo lagala xaali karo arrinkooda heshiiskan waqtiga uu soo baxay heshiiskan waqtiga uu soo baxay waa 1933 waxa weeyaan waqti yar ka hor waqtiga kadib dagaalkii koowaad ee adduunka waqti kadib weeyay wuxuu inoo muujinayaa sida markay isku soo taagmeen qaramadii beeriyo ay ugu adkaatay cidee lala xaali karaa iyo cidee lala xaali karin ay markaa dambe ay isdaahdeen aynu u samayno shuruud wax aynu saldhigu uga dhigno noocyada markaa dowladaha waxaynu ama qaramada waxaynu u kala saari karnaa dhowr nooc baa loo kala saari karaa mid waxay ku salaysan tahay xubnahooda yaa ka mid ah qaranka markaa waxay jiri jirtay Greegtoo kalena Greegtoo kalena waxay aad u taqaanay waxa la yidhaahdo city states ama qaran geligiisu hal magaalo ka kooban waxaa jira on imika aad u naqaanaa qaran ku dhisan qowmiyad markaa matalan lixdankii Soomaalidu markay gaabigoobaysay shantii Soomaaliyeed waxay raadinayeen qowmiyad Soomaaliyeed oo hal calan oo quray uu ka dhaxeeyo waxa isla taa waafaqsan imikadan baan arabismka waxaan la yidhaahdo walow malaha carabta la odhan karin waa hal qowmiyadooda dad badan oo isku jira ay yihiin laakiin haddana mar hadday isku dareemayaan sidii shacbi qura ay wada yihiin iyadna waa qodob kaloo ka mid ah qaramada in badan waxay kusoo bilaabmeen in la aaminsanaa boqorku inuu yahay qof ama ruux ilaahay u dooray mansabka markaa boqorradii reer Yurub qaar badan oo ka mid ah inuu ilaahay siiyey matalan bay u arkayeen boqortinimada uu wakiil uga dhigay ilaahay aqbala sidaas oo kale ahaayeen iyagna kuwii Chinese-ka ahaa dhowr kun oo sano kasii horreeyayba kuwaa Yurub waxay yaqaaneen waxay dhahdaan Tiananmen oo ah mandate of the heaven samada ayaa laga soo dooraa qofka markaa haddii dhulka abaara ka dhacaan iyo dagaalo iyo waxaasi hadday ka dhacaan waxaa loo arki jiray in samada laga soo diidan yahay boqorka marka waxyaabaha waxay ahaan jirtay makeeno marka dambe ka abuuray iyo qaramadiina waxaynu aragnay ku salaysan diin iminka waxaa kasii joogaan malaynayaa Faatikaanka matalan ayaa kasii mida wadamada islaamka qaarkood baa magacooda dalka ay ku taalo inuu dalkaasi dal islaamika uu yahay waynu u geli doonaa qola kale mar kale waxaynu ku kala saari karnaa nooca awoodaha lagu kala adeegsado iyo dadka awoodda loo igmado siday kala yihiin qaramada qaar waxaa ka taliya cid keligii taliya qaarna koox kooban ayaa ka taliya ama aayatullayaale ama amiirade ama waxaa tidhaahdaa ahlulxalli walcaqdi waa koox kooban oo ummadda inteeda kale u talisa iyo qaar dadweynaha oo dhan markaa ay talada ka qayb qaataan oy codkooda leeyihiin
inta badanna maadaama uu go-aan kasta dadweynaha markasta lagu soo celin karin ku salaysan wakaalad oo cidi wakiil ka taho baarlamaanada iyo ay sidaa wakiil uga noqdaan waxaan kaloo qaramada u kala saari karnaa heerka madaxbanaanidooda marka heerka ugu sarreeya waa qaran madax bannaan completely oo dal iskii u taagan ah oo waa sovereign state-ka kuwa aynu nidhaahno iyo kuwa aynu u naqaano dowlad goboleedada oo ah federated states marka qayb ka mida madax bannaanidiisii buu u xawilay cid dhexe iyo qaramo isu tegtay iskood u kala madax bannaan laakiin isku tegtay dabadeetana samaystay wax guud oo ay ka midaysnaadaan iyo wax usii kala gaar ah hadhowna mid walba iskii u diidi karo waxaa guud laftarkiisa uga noqon karo tusaalayaasha ugu fiican imika waxaa ka mid ah European Union oo isku sii tegaya Switzerland dal ahaan bay u ahayd qaran noocaas oo kale Belgium waa bahal waa noocaas oo kale oo aad u iskaga complex weeye marka iyaga confederate states ayaa la yidhaahdaa bal dhankii haddaba beeshana aynu u nimaadno inta badan waxaa la yidhahdaa Afrika waxaa dilay waa qabyaalad baa la yidhahdaa Afrika qabyaalad ma dilin qowmiyado kala duwan baa hal calan wadaagaya tusaale u qaaday Ethiopia waxaa ka jira waa 60 qowmiyadood wax ka badan baa la yidhahdaa 60 kaa qowmiyadood waxaad suuraysataa waxa ay kala leeyihiin 60 af marka waxay kala noqon kari lahaayeen 60 dal oo kala duwan af kasta waxaa la socda dhaqankiisa iyo hiddihiisa iyo wixiisa ayaa la socda marka 60 dal bay kala noqon kari lahaayeen dalka Nigeria la yiraahdo inta European Union ku jirto oo dhan ayuu ka diversity badan marka ma ha qabiilo waa qowmiyado iyo okay laakiin Soomaalidu waxa isku kala Soomaalidu sida isku kala qaadayso qowmiyada ma af qura ka dhaxeeya hidda quray markaa wada tirsadaan waxa isku kala qaadaysaa waxa weeyaan qabiiladii hoos waa tirsin iyadu mid ku sareysan qabyaalada maxaa goormaynu isticmaalnaa ereyga qabyaalad baa ayaa dhacday waxaa had iyo jeer aynu maskaxda ku haynaa waxa ina ragaaliyey waa qabyaalad qabyaalad laguma qaramoobi karo ereyo badan oo noocaasa had iyo jeer ku badan hawlaarteena siyaasadeed su-aashu marka waxa weeye waa goormay qabyaaladu dhacdaa goormaynu san nidhahnaa waa qabyaalad imika waxaa laga yaabaa guryaheena inay joogaan dad tolnimo darteeda aynu ku caawino qofkeedna ma idhaahdo qabyaalad gurigaas ku dhaqmaa lama idhaahdo qabyaalad laakiin waxaan nidhaa marka matalan aan shaqo usoo wada doonano Cabdicasiis anigu Cabdicasiis kaa xigo Cabdicasiis aniga isiiyo adiguna weydo baynu qabyaalad nidhaa walu fiirsaha halkaa uma naqaano inta wanaag uu Cabdicasiis tolkii dartii u samaynayo marna uma soo hadalqaadno inay tahay qabyaalad marka qura uu qof wax isweydaariyo laba qof oo laba reer kasoo kala jeeda aynu uga shikino inuu isku weydaariyey sabab aan ahayn reernimo darteed waa markaasoo qura markaynu isticmaalno ereyga wadayna qabyaalad markaana wuxuu ku kacay waa cadaalad darro waa iyo cadaalad darro magac alla magacii la doonay ha lagu sameeyo waa isku mido haddii magaca ilaahay lagu sameeyana ugu sii xun tahay way ka xun tahay magac tol haddii lagu sameeyo haddaan laba qof u kala eexdo oon garta ku siiyo qof aan gar lahayn magaca ilaahay baa sidan igu yidhi markaasay ka xuntoo qofkan kale ilaahayna waan ku diray laakiin innaga waxay inoo rajistar garaysan inoo diiwaan gashan marka magac qabiil darteed aynu isleenahay qofkaasi waxa uu u sameeyey oo quraynoo ayaa inoo soo marka qabyaalada
markasta aynu soo qaadayno duuduub in lagu tuuro mooyaane in hoosba loo dayo cidina diyaar maaha. haddii ay dowladi samayso gaboodfal miyaynu uga guurnaa dowladnimada ma nidhaahnaa okay dowladdii adduunka ugu maanta xoogga weyneed ee ugu ilbaxsanayd waata ku taagsanaysa Afghanistan sidaa darteed waa dowladnimada lagu xagaagsan maaha miyaynu nidhaa maxaynu u leenahay marka tol magacii cid welibana aan ka wakiilahayn dadka oo dhan ay ku dambi gasho maxaynu u nidhahnaa waa qabyaanad waxaan ka soconaa waa meelahan u baahannahay inaynu maskaxdeena u furno bal su-aalo intaa ka ballaaran iska weydiino laakiin su-aasha muhiimka ah waxa weeyaan waxa nacbaysiinteeda qayb door muhiim ah ku leh dadka la yidhaahdo garwadanada bulshada ama elitiska dadka ka ah bulshada. Africa mid ka mid a waxyaabaha dhacay waxa weeyaan in uu kala go-ay taariikhdeed inay kala go-day sida uu ku dooday matalan Basil Davidson marka uu gumaysigu yimid inta badan Africa waxaa moodaa way ka dambeysay qaarado badane marka uu gumaysigu yimid innagoo kale 1800 dabayaaqadii Afrika buu inoo yimid markan uu yimid dad baa talin jiray dadkii talin jiray xuskaa la geliyey waa la hareereeyey intii hore heshiis lala gala iyo waxa lagu qaarkooda lagu maslaxo waxa weeyaan oodan baa la geliyey markii dambe dowladnimada waxa loo diyaariyey inay la wareegaan waa dadku gumaysto taabay marka waxaa kala go-ay dadkii beriga hore inoo talin jiray iyo kuwa taladii la wareegay sidaa darteed baad u aragtaa in la yidhaahdo oday dhaqameed waa oday dhaqameed maaha inuu siyaasad galo ninka nabad iyo colaad ka wada talinaya waa maxay siyaasadda ka maqan ninka maanta abaabuli kara dagaal socdana joojiya xabadda odhan kara siyaasadda waxaa la yidhahdaa waa marka dadka qaar waxay ku sharxaan inay tahay gebigeediba in si nabad ah uu qofku ku xalliyo khilaafaadka dagaal socda ninka joojin kara ama ku aan jirin bilaabi kara ee la isku rogmanayo waa maxay siyaasadda ka maqan inna waxaan hadda jeer si yaroo fudud iskaga nidhaahnaa may oday dhaqameed weeyaan dhaqankaa ku ekaada ayaynu markaynu ka hadlayno salaadiinta iyo uqaasha iyo aynu marka halkaa waxaa ku jira kala go taariikheed baa ku jira Afrikana wuxuu ku dooday markaa Davidson Afrikana horumar ma samayn karto ilaa iyo silsiladeedan kala go'day ay isku tabato ilaa silsiladeedan kala go'day ay isku tabato u kaalay matalan Fukuyama oo kale wuxuu dhisayaa 3 tiir oo dowladnimadu ku taagan tahay wuxuu ugu yeedhay bureaucracy-ga ama state-ka oo ah intan adeegyada fulisa rule of law ama sarreynta sharciga oo inta sharciga yaala macnayntiisa sharcidiisa iyo fulintiisaba u qaabilsana iyo la xisaabtanin uu jiro 3 shardi buu leeyahay marka ay helaan qaranku 3daas oo isku miisaan ayay qarannimadu leedahay saqaf ay ku joogsan karto inta ayna 3daas isku miisaaneen ee ku jiro way liidataa innaga markaa eegto garwadeenadeennii siyaasadeed maaha dad u diyaar ah in lala xisaabtamo waxa weeyaan hawsha aniga ma la ii gacan banaynayaa oo ma laygu daynayaa mise dee faraha laguma wada jirayaa wey markaa qaab aynu ku xisaabtanno odayaasheenna dhaqankuna kuma jirto kuwa aynu nidhaahno kuweena siyaasiga aynu nidhaahnana kuma jirto waa halka uu leeyahay markaa gaafiyana waa ateero looga gelayo markuu qofku dembiga uu gala weeyo tani markaa maxay keentaa waxay keentaa dadku baahidooda aan la daboolin inay meelo kale ka raadsadaan
baahidooda aan la daboolin inay meelo kale ka raadsadaan tusaale ahaan niman shantaa kaa celin sharci kaaba celiyadu inay timaado uu nin kasta oo Somaliland markaa uu diyaar u ahaa wixiisa xoog ku dhacsado لأن waxaan jirin xisaabtankii ay u baahdeen waqtiga ordaya haddaynu eegno nuclear Robinson iyagu waxay leeyihiin ama elitku ha sameeyaan ama bulshadu si guud ha sameysee haddii meesha uu jiro qaranka hadduu jiro waxay ugu yeeleen inclusive institutions ama hay-ado aan dhiig miiranaynin dadka labay u kala saareen hay-ado dhiig miiranaya iyo kuwa la wada leeyahay oo dhiig miiranayn haddii markaa kuwaa dambe ay waddanka jiraan ayuu waddankaasi suurtagal u tahay inuu horumar iyo waxaa sameeyo isla garwadeenadaas innaga saameyn badan bay ku leeyihiin nidaamkeena qabaliga ah inteena qabiilka dhexdiisa habmaamulka reeruhu maaha habmaamul dhisan oo adag maaha oo meel laga maraa jiro dhinac bay ka fiican tahay inaanu adkayn dhinacna way ku xun tahay dhinacay ka xun tahay haddaynu ku horeyno waxa weeye in si fudud cid kasta oo beesha ka mid ah oo labo horta qodobkaana aynu tirada ku darsanne Soomaalida 50% unbaa beel ah haweenka beel looga tiriyo markaa mushkilada beelaha markaa ka hadlayno waa mushkilada baa ka hadlayna waa jadariishii baa la soo karaa haddii la doono waayo haweenka kuma tirino talada beeshana laguma daro mashaakilaadka beelaysiga iyo dhibta ay keenaan iyagu qayb firfircoon ay ku leeyihiin lama sheego markaa waa ragga mushkiladana ka hadlay waa mushkilad ragga u sii gacan waayo markaa dabacsanaantaas waxay keenaysaa in nin kasta oo mudakar noqday uu saameyn ku yeelan karo reerka ayay dabacsanaantaasi dhinac way ka fiican tahay oo waa halkuu I.M. Lewis lahaa waa pastoral democracy ama dimuqraadiyadda reer guuraaga uu bixiyo aan cidna cid kala saarayn way gaarteen waa ummad aad u siman wey laakiin dhinac kalena way ka xun tahay oo sida ugu fudud baa loo majan habaabin karaa inta ugu tirada ugu yar ayaa beesha dhinac qaldan u jihayn karaysa haddii markaa ayna helin dad ka qabta haddaanay helin nasiib darradu laakiin waa maxay dadka ugu badan waa way aamusan yihiin markaa matalan welibana gaar ahaan inteeda reer magaalka ahee waxbaratay dugsiyada gashay waxaa laga yaabaa maanta haddii lagu idhaa tolka halkaasuu shir ku leeyahay inaan dadka inteena badankeenu ayna tegin oynu ka yaqyaqsoono laakiin waxa ay sameeyaan hadhowto adigana uu saameeyo waddankana guud ahaan u saameeyo haddii aad joogi lahaydna laga yaaba inaad odhan lahayd kelmad wax ka bedesha ma ogid laakiin markaa iyagii baynu isku daynay qodobka ugu daran ee ay saameynta inoogu leeyihiin dadka garwadeenada bulshada u ahay elitiisku waxaa ka mid ah inay qeexaan mashaakilaadkeena markaa sida ay u qeexaan walow ayna ahayn si saxa hadday doonto inay noqoto qeexidda qura ee taal dabeetna aakhirka aynu ku khasbanaano inaynu qeexiddaa u qaadano matalan 60kii maxaa dhacay haddaynu isweydiino dhowr definition oo qurun baaynu haynaa siday wax u dhaceen dhowrkaa aragti unbad mid ka mida dooran doontaa 99% tolkaana waa kala doortay wey 99% way kugu adag tahay inaad doorato sharax la mida sharaxa wiilka Kismaayo uu doortay midoo way kugu adag tahay qofku marka uu la socdaa waaqica inta ku xeeran inta ugu xeeranna tolkaaba u badan ee wayna taa garowsano weeye
haddaynu eegno imika waayaarnimadii somaliland tusaale ahaan shirbeeleeda ayaynu qabanay shirarkaas waxa lagu wada hadlaya luuqaday dadku yaqaaneen iyo farsamadayda ay kusoo heshiin jireen kaalin muhiima ayay ku lahaayeen nabadayntii somaliland iyo hubka dhigisteediiba waxa ka dhashay dowladnimadan aynu maanta hayno dowladnimadan waxaynu nidhaahnaa waa qaab aynu dimuqraadiyaddii ku walaalaynay dhaqankii golaha ugu muhiimsan taa usoo dariishanaana waa golaha guurtida laakiin waxaad ila qiraysaa haddaad beeshiina eegtaan odayada ugu cadcad ee dhaqanka kuma jiraan guurtida anigana beesheeda kuma jirto odayada ugu cadcad guurtida kuma jiraan halkeebay imika iskaga jiraan maalintii la dhisay somaliland way isku jireen goorbay kala baxeen goor guurtidu noqotay golo siyaasadeed way ka guurtay waxaynu u naqaano gola dhaqan goorbay ka guurtay waa su-aalaha yarna meesha inoo yaala xisbiyada somaliland tusaale ahaan ma nidaam aynu u guurnayba mise waa beelo magacyo cusub qaatay imika marka la yidhaahdo kulmiya dadka bedelkooga jeegaan baa kusoo dhacda maskaxa yani saraaxada haddaynu uga hadal jeegaan baa kusoo dhacda wadani marka la yidhaahdana reer burcaa kusoo dhaca soo ma qayb ka mid a ya maxaa markaa magacyadani ma magacyo cusubbaa oo reeruhu la baxeen mise waa xaqiiqo siyaasadeeda cusub tusaale kalea jira waxaynu hadda jeer ku aragnaa qoraalada markaynu qorayno beeraha darifyada iyo beesha dhexe waxaynu ka xishoonnaa inaan nidhaahdo isaaq samaroon ciise harti reeraha magacaantooda inaan sheegno ayaynu kaga xishoonnaa ay kaga wejida dabnaa berigii dagaaladu socdeen baabe waxaa burca inta badan aada looga warrami jiroon xasuustaa marna waxaan odhan jiray bariga burco iyo galbeedka burco annagoo ku cusbaa hargeysa markaasa kala gara waayi jir maxaa bariya maxaa galbeed burcaba markaa maan arag marka xag intee la egba xisbiyadeenu yihiin nidaam aan uga guurnay oyna ahayn un magacu yaallo laba qodob bay ku hadaasiiso waxaan rabaa nidaamka beelaha inaan laba arrimoodoo kale aynu si yaro guud uga hadalno waxaa jirtaa xagga cadaaladda markaynu ka hadlayno statiska waxyaabaha loo samaysto waxaa ka mid a inay nabaddu jirto mid ka mid a shuruudaha nabaduna waa in cadaalad leexdo markastoo cadaalad jirto waxay u dhowdahay haddaanay damacyo kala soo gelin inay sii waari karo concept waxaa jira markaa cadaalada fikir cadaaladeed baa jira oo la yidhahdo restorative justice ama cadaaladda magdhowga ku dhisan weeye basically waxa weeyaan haddii aan wax ku yeelay in xaaladda lagu soo celiyo halkii intaanan wax ku yeelin aad joogtay markaa haddaan lacag 1,000 shilin ah kaa qaato xaaladda sidee loogu soo celin karaa waa in 1,000 shilin lagu soo celiyo haddii gacan lagu jaro laakiin gacantii ma soo noqonaysaa way ka duwan markaa dadku fikrado kala duwan bay ayay halkaa ka aaminsan yihiin okay waxyaabaha nidaam dhaqameedku uu ku wanaagsan yahay waxaa ka mid a restorative justice oo uu kaga wanaagsan yahay nidaamkan qaran qowmiyadeedka waxaan aynu naqaanay maanta wadamada galbeedkiiyo aada uga jira siduu ugaga wanaagsan yahay iyagu ma soo celiyaan dowladahani xiriirkii dadka haddaad dembi gasho dembiga kamaad gelin qofka waxaad ka gashay dowladda daadis waa sababta taasi xeryaaliyaha guud u doodo qofka dowladda ayaa dembiga laga galay adiguna waxaad ahayd uun wasiiladii ay sii martay marka haddii qofkii dembigii lagu xiro ood adigu aada cafiso ilan waxaad qoran tahay ninkaan dembiga laga gelin baad qoran tahay adigu haddaad cafiso
dowladdu weli may cafin way iska daysanaysaa iyadu may cafin adigaa cafiya waayo laakiin matalan innagu waxaan aaminsanahay in qofkana laga galo guud ahaanna loo galo oo nidaamka islaamiga ah baa ayaa sidaas oo waa tan magta oo kale uu xaakim marna xukumi karo iyadoo ay dadkii dalbadeen diyo hadduu arko duruufta guud in la dayarsanayo dilkii dadku la dayarsaday waa kan xukumi karaa in qofkii qofka loo dilo walow reerka ay dalbadeen diyo marka dadkan in dib loo walaaleeyo nidaamkan qabaliga ah wuu kaga wanaagsan yahay nidaamkan kale ee dowladahan ay imika ku dhaqmaan dowladaha kale waxa lagu dhaqmaa qofka dembi kala gasheen kaanama aydan maalin dambe aydan isaakido waad kala gasheen waa la xidhay waa la soo dayn dhulkiisu dhinac ka geli dibna isuma arki kartaan oo kaleba ayaa ku hoos qarso innaga laakiin waxaa loo xaliyaa si labadii qof xidhiidhadoodii dib ay ugu soo noqon karaan waxaan iyadna fikirka kale ee ay tahay inaan aada uga digtoonaano waxa weeye universalismka in laga dhigo fikir hal meel si fiican uga hirgalay oo uga jaan qaaday in laga dhigo wax dunida oo dhan kow ka jaan qaadaya laba ee ayna jirinba mararka qaar fikir kale oo la u dhigmi kara oo bedel u noqon kara marka nation states sida looga fikira hadda waxa weeye kow waa taa hore ah inay yihiin qaabka qura ee lagu shaqayn karo isla markaana ayna jiriba karin qaab labaad oo lagu habayn karo dowladnimo macquula meelaha aadka uga guuray fikradahan qaabkood waxaa ka mid ah Singapore iyo matalan China iyo tusaale ka dhiganaya matalan China oo kale halka wadamadan kale leeyihiin si wadanka horumar u gaadho waa in la helo xisbiya badan oo u tartamaya dabeetana xisbiyadani ka hataa mar khaldama doorashada labaad baa sixiyo la ciqaabi doonaa halkay ka leeyihiin China wuxuu leeyahay hal xisbi oo kale xisbigaasina wuxuu leeyahay recruitment agency aada u ballaaran hay-ad aada u ballaaran oo u soo xusha dadka ayuu leeyahay assumptionkii hal dal unbaa lagu halkii dal hal nidaam unbaa aysanna ka jiri karada China wuxuu qaatay markuu Hong Kong la wareegayay wuxuu qaatay in dalka keli ah ay ka wada jiraan hal nidaam marka waxay odhan jireen one country two systems hal dal laakiin laba nidaam marka nidaamka Hong Kong oo yar lagu maamulo iyo nidaamka China intiisa kala lagu maamulaa way kala duwan iyo markaa ma ay qaadan waxyaabihii loo qorayay sida dhakhtarka loogu qorayay lalahaa klinika xabado marka iyagu sidooda umay qaadan China waxa la aqoonsan yahay inuu yahay dowladnimada wadamada ugu faca weyn oo 5,000 oo sano u atirsanay nidaamkan la yiraahdo nation state ama qaran qowmiyadeed ee imika cusubna waxa loo tiriyaa waa 200 sano ee ugu dambeysay ayaa xuduudiisa loo tiriyaa tisqaadkiisa ayaa loo tiriyaa ka Singapore iyo waxaan ku soo qaadan doonaa gabagabada innaga isa seega hadda jira muxuu yahay waa maxay waxa aan hadda tabayno iyo waxaan ka dhaqaaqi karnaa badi waxyaabahan tabayno waxay u badan yihiin dhanka horumarka iyo cadaaladda iyo baynu tabitaan badan ka qabnaa isa seega jira waxa weeye waxa wax lagu qaybsaday iminka Soomaaliya intan dambe waxa wax lagu qaybsadaa xisbiyo marka xisbi baa doorasho hela xisbina doorasho waayay Soomaa laakiin waxa lagu xisaabtamaa reero marka waxa oranaysaa waradiga igada magacaanta xisbiyada reer hebel imisa u jirtaa golihii baarlamaanka ama ha ku soo baxaan kulmiye ama ha ku soo baxaan wadani ama cid ha ku soo baxaan reer hebel ha imisa u jirtaa
marka awoodii laakiin sida lagu imanayaa waa maxay waa xisbiga sida lagu xisaabtamay dadku ay macnaha u leeyihiin waa heeray waayo taas maxay keenaysaa iyada oo xisbiye kala duwan talada dalka meelo kala duwan kala haystaan laga yaabaa gudoomiyaha baarlamaankuna inuu xisbi noqdo berigii dhaweyd waxaa ahaa Soomaaliya gudoomiyihii wadaniba ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dawladda waxa haystay kulmiye marka sidaa u eegto waxaad moodi karaysaa in wadanku ku salaysan yahay nidaam xisbiye badan oo cadaalad oo dhanka xisbiyaduna hadda ku eegto waayo haddii xisbi da'yar oo mucaarad ah opposition noocaas oo kale ku guuleysan karo dee ididiiday leedahay Soomaa laakiin dhanka kale waxay dadku xisaabtamaan waa heeraha marka raggan aad arkayso waxaa lagu arkayaa indho reer ayaa lagu arkayaa that is why aynu u arkaynay matalan tii ugu dambeysay oo kale markii uu ka degay gudoomiyaha qasab uu ka degay waxaynu arkaynay yaa gudoomiyanimada u tartamay laba reer laba nin oo dhulbahantaa Soomaa basically waxaa leeyahay war sidan inama wadi karaysee qabyaaladii aynu ku xisaabtamayaan macno u sameeyo laakiin xisbi ahaan tii waxa ka markaa culays badan badbooda marka isaseegeed waxa weeyaan wax uma qaybsanno waxaan ku xisaabtamay taas waa mid mushkilad kalena waa qurtaayo ah constituency problem waxaan ugu yaanay yaad matashaa imika marka la iga soo doorto magaalada Hargeysa ee isoo doortaan reer hebel ogahay cidda ay doorataan ogahay ma reer hebel baan matalaa mise dadweynaha Hargeysa oo dhan baan matalaa Soomaa yaad matashaa normal waxa qofku cidda u codaysa ayaa saameyn badan ku leh marka cidda ku codaysay maaha kaftan maaha waa cidda go'aaminaysa qaraaradaada in badan leanna waxaad rabtaa bedina haddaad soo noqon karto inaad soo noqoto marka walow aan ognahay qofkaa inay reer hebel soo doorteen haddana ma nidhaahno reer hebel baa soo doortay marka isaguna ma samayn kara ballanqaad cad waxa la yidhaha corruptionku wadamadan iyo dunida reer galbeedka laba siyaabooda kala duwan buu uga kala jiraa clientelism buu Fukuyama ugu yeedhay calaykum assalaam Fukuyama clientelism buu ugu yeedhay matalan waa nooc corruptionka ka mid ah in aan idhaahdo haddaad codka isiisaan degaankiina waxaan gelin waxaa dabeetana cashuuraan berbera ka soo qaaday matalan aan degaankiina maadaama oo idinku codkii ugu badnaa aan idinka helay cashuurtii berberaadan halkan idinku maalgeli waa nooc ka mid a markaa corruptionka buu ayuu ugu yeedhaa Fukuyama okay marka yaad matashaa qabiil wax ma u ballan qaadi kartaa reer hebel waxaasaa u hayaa ma odhan kartaa waduu leeyahay reer hebel soo doorteen ma odhan kartaa and the tyranny of the majority the majority un baa la isku maamulay haddii go-aanku u bato cid waa maxay farqiga u dhexeeya xuquuqda aasaasiga ah ee qofku uu leeyahay dadku ma ku heshiin karaa majority hadda jeer waxaa xukumo meelaha ay ka khaldan tahay waxaa ka mid ah dadku ma ku heshiin karaan in nafta lagaa qaado biqayri sabab hadday ku heshiiyaan garmeed marka majority-gu mar walba ma yahay xukunka ay tahay in la raaco gabagabadii waxaan kusoo gabagabaynayaa horta wadan in la garto labadani miyay iswaafaqi karaan mise isma waafaqi karaan waxa weeyaan waa arrin aada u culus kow waxay u baahantay inaad tijaabiso inta siyood ee suurtagal ah in la isku waafajin karo ood garato dee horta inta siyoodba intay tahay si daacad aad u tijaabiso dabadeetna markaasaad jawaab aad ka bixin kartaa laakiin maxaan uga fikiraynaa in si qura unaan isku garadsiino
مثلا ما واحد قبل سيدنا كبا أصلا ما واحد أصلا nation state كما قال قوميات كأصلا مثل واحد أصلا قبيل كأصلا كبا أصلا وإن تاكلا إنما أقول سنة دميسون أحيان دولة نمائية وحاكو الدولة نمائية ضمنوا عنا إنه كهذا إنه فوز جدا ما تم بقى سنة نقارننا مثل كماليال كسرنا نظام كي بوشيد تري أيها أصلا إنه سنغافورة أكله وهل كان لها صار ونصور قلنا سنغافورة أكله واحد بدي شيء حبلوليد كي si ay nidaamkan uga shaqaysiiso marka ama waa inaan bedelno habnololeedkeena oo nidaamkan marka si aan uga shaqaysiino ama waa inaan nidaamkan bedelno si aan u waafajino habnololeedkeena murtidii labada sheeko ku soo noqo labadii sheeko maxay ahaayeen duqsi ayaa maqlay shinni baa la soo sasabay dabeetana isaga u fudo hibooyinka dabiiciga weyn iyo xuunkii markii lagu yiri biyaha soo qaadsa malabka loo sameeyo loo tilmaamay biyaha soo qaadayna waan kartay iska taagay labaduba way loo digniba anigu aan islaahay yeenan waxaynaan ahayn aynaan ismoodin duqsigaas wuxuu ismooday inuu shinni yahay oo dheef badan lagu qabo wuu daday idina kala daba tegay dabcan dib badan baa laga tirsanayay oo waa alxamdulilah baa leeyahay xuunkuna wuxuu la fahmin ayuu ismooday inuu fahamsan wax aanu fahmin ayuu ismoodsiiyey inuu fahamsan waa kayda halkaa iigu joojiya nidaam kasta oo horumar iyo barwaaqo inoo horseedi karaa waa nidaamka aynu fahamno innaga oo innaguna isfahamsan isagoo inaan fahamno maaha innaguna waa inaan isfahamno dabeetana u baahideena ka jawaab aad baad mahadsantiin aad buu mahadsan yahay waxaan rabaa in aynu isa siino jaanis degdega waa qaalo si falanqaynta mawduucda oo ay halkan uga sii hana qaato marka ma aha sidaan sheegay su-aalo iyo jawaabo oo qofka inta leedahay taa maxaad ka su-aalida toosan kaad weydiiso qofku markii uu kaga jawaabayo su-aalahiin way noqon kartaa oo su-aal noo wada yaala iyo faallo guudba markaa fadlan cilmiga haysta gacanta ha taagto qofku markaa waxaan jeclaanaya inuu ii soo dhawaado waxaan aada uga codsanayaa qof kasta inuu aada usoo koobo mawduucana waa uu aada ugu koobnaado اللهم نبارك كما فريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعد عبد الرحمن شيخ محمد. ما ينال الجسد تاج بوماسين هم يسبب البنات بوماسين تاي. مركا لقاها ضياء توصل قلب. الله مركا لقاها ضياء قبيل. ما مركا ودنت جودي هي مش مركا ودنت جارك هاي. مركا ودنت جارك أي هاي سير شيء جودي جيني كينا طحيصو. مهرد هذا بيسو تاشترون من أمانيسا وإذا مرنا قبيل هي من ميسا واحد يقوقع المركز لك سيد أمانيسا واحد الجودة الصراحة شغال يمدك الحيسي أبعد قال سيسو إن الله مستعان إن وحي بابليك سيرفيس كيونا وشكدوا ما واحد قال لولي حامك عبد سيسو بس تاسوع أمانيسا قبيالة أو يقرأ وكيل كيف سوف نسيو إن لنا كلام مركز نحضر وحكا كهذا إنه دولة نمد إنه سينو رقمنا ما حاسدي قومية وسيدي قبيل. تصالح فضل خير كيجا وحسبيه بلها يخير كيان ترتمي وحسبيه بلها ما تدور تسكسي ما كايسنا. أنك جبان بدي إسناء جوان. بركويحي لوحي قيي هذي بيقولوا لي سري سياسة وعسر محمد قرية. مركا مالين نقولي مهمة بإنتهي نكونترس كسو قدمنا سيد إسويسر لا وقرأ إسويسر ما واحد هيكون بحل جدا جدا كبيرة دي دعاي دولته يقولون بتنصرها وصارت ليج اوف نيشنز هي عوضتي مركي دبوا لو وحو مريكا بيجي تروح عوض ديشو عوض قاطي لكن ما يراها يقولون بطن بقى سببتك انت waxa weeyii todobada qoomiyada degan waa la yaqaanaa sanad 5 sano oo socotay cid madaxweynaha iska mar qolada bulshada ku soo jeedaa iska
مرقود فرانسيسكا سوشيدا إسكاله مرقود طلياني سنة نوع بإسكاله مركان تين هدي نوسو من بورينو ونحن وبير هبرو دور كنيدي كله أما إيه قبيل هبرو والمصري لكن سدود مدي كله لو شرعيو يا قوم وله ودسيت صح هذا لو قبل شيء يصير معنا مرة هرمار كيو كوك خبرة وقصعد لكن إذا كل سنة يرى الأسبوع يعني وفيش مرفقت أنت الأسبوع يعني ويصير الغمض ده قامه أو لو قالوا وين صار لو معلو ما كان فكت هاي السنة لو كنا يكورن ديال هذا تيجي بيقولوا دور كايد كله ثم أنا إيدي كاين كلا دورنا إنسان ما كان قف أصلا هذا لو دورنا يعني هذه هي نصيبها طبعا شذا كورن مركز سيدنا وحنا هيا وقتها هيا سيدنا سورة السماء وجاء يتكلم في الله إساس بسم الله الرحمن الرحيم حضورك والله معلله والسلام عليكم موضوع runtii dowladnimada casriga iyo habka beeleed runtii aad u xiiseeyo waan jeclaan lahaa inaan ka soo qayb galo bilowgii laakiin bilaasad kadaan baan ka soo gaaray waxaan doonayaa xiiso laba qodob waxay isweydiin lahayd dowladda casriga ah iyo qabiilnimadu maxay isku diidan yihiin waa mowduuc muhiim weeye aragtidayda aan isku day inaan soo koobo laba qodob baa ugu muhiimsan qodobka koowaad waxa weeye qofka muwaadinka ama halka qof wuxuu leeyahay loyalty ama cid uu daacad yahay u hoggaansan yahay walaa uu hayo marka beeshii qabiilkii uu ka soo jeeday iyo dowladdii uu ku abtirsanayay keebuu u haynayaa walaaga badan ama uu walaaga u haynayaa dowladda iyo qabiilku taas ayay isku qofku laba walaaga wada yeelan karo oo matalan beeshiisa iyo dowladda uu ka tirsan yahay walaag isku mid ah ama loyalty isku mid ah uma wada yeelan karo innaga oo bulsho qabaa'il ah oo halka dowladnimada ama isteednimada uu qabiilku inoogu jiro halka madaxa suldaanka ama ugaaska ama odaygu inoogu jiro halka ciidanka iyo difaaca inoogu jiraan ragga beesha ee tolka inoogu jiraan bulshadu sidaa ay tahay ayay dowladnimada casriga ee cusub ay noo timid inagoo aan u bislaan oo gaadhin ayuu isticmaalka inoo keenay ugu dambayntiina isaga ayuuba runtiin igaga heliyay marka qofkii Soomaaliga ahaa ilaa hadda waxa uu looyal u yahay beeshiisa iyo dowladnimadii casriga ahayd ee dusha inaga marka ay isku hor yimaadaan looyalkii beeshiisa ayuu fulinayaa tii uu beeshiisa u daacadda u ahaa marka saas baa keentay dowladnimadu ay naga burburto dowladnimadii Soomaalidu inay burburto waa looyaltiga weeytay isku haystaan midda keliya ee taay laga bixi karaa waxa weeye iyadoo structure-ka qabiilku uu meesha uu ka baxo oo dadku ay isku milmaan marka waxa soo baxaysa inuu qofku hal nidaam u hoggaansan daacad yahay ku abtirsan midda labaad waxa weeye soo koobiya dowladnimadu waxa ay isku keentay dad markii hore kala fadhiyay dad u fiirsato beelaha Soomaalidu beel walba iyada sideeda ay state u hayd nidaam u hayd primitive hada ama nidaam bila laakiin sideeda ay dowlad u hayd waxa ma wadaagi jirin beelaha kala jaarnigu baa ka dhaxaysay dowladnimada casriga ah ee qaadanay waxay isku dayaysaa beelo aan waxba wadaagi jirin mag wada bixin jirin deegaan wada lahayd jaar u nahay inay wax wadaajiso tiyo bulshada markaa u bislaanin waxaad moodaa dowladnimadii inay isku jujuubayso weliba dadkii canaadnimo nafsi ay ka muuqato aad baa umaadsantahay faalada magaaladaan u daynayaa dabeedna waynu bixi doonaa waan soo gaagaabin waa la eedaamayaa walaalkeen cabdiraxmaan wuxuu ka hadlay danta guud iyo tagaarka anigu waxaan diidanahay kelmad qura in ma garanaysaa kelmad waa ficilka qabiil sameeyo qabyaaladdu anu saan waa xaqaan marka wax kasta oo aad ku samayso magac qabiil anu waxay ii tahay qabyaaladii baa kala leh wax saxan iyo wax qaldan bay kala leh innagu sida aynu u naqaano dadka badankiisu aynu u isticmaalnaa waxa weeye si ah qabyaaladda inaan u naqaano markay dhacdo oo qura baynu u naqaanaa laakiin ficilku wuxuu ka yimid qabiilku waxa uu sameeyo
hadduu qabiil jiro qabyaalad way jirtaa laakiin su-aashu waxa weeyaan eexdu ma tahay cunsur asal ah oo matalan qof kasta oo oday ahaa weligiiba miyuu eexanay haddaad u fiirsato odayadii haddaad taariikhdooda yar eegto rag badanna waxaad arkaysaa siday iskaga ilaalinayeen eex iyo xaaraan waxa la odhan jiray ilaahow aqoonna ha igu cadaabin eexna ha igaga tegin gar kastaasaa lagu bilaabi jiray markaa ma aha asal eexasho ma aha iyadaana magacaa wadata eexashaa la idhaaye qabyaalad ma aha qabyaalada wax kasta oo lagu sameeyo markaa eexna waad ku samayn kartaa tafcalul khayrna waad ku samayn kartaa iyo reerka ceel baad u qodi kartaa labadu waa qabyaalad taa iyadoo taasaan ku maxaynu u colaysanaa haddii la isku mid noqonayo maxaynu isku colaysanaynaa nabadeedii baanu ka laaluushaynaa reeraha si aynu nabad u ahaano markaa aqrabiinkunbaad ka helaysaa dadka marka xisbigaagu guulaysto kooxda aqrabiinka noqonayso baad noqonaysaa laakiin reeruhu siday u fadhiyeen waxba lagama bedelay waa nabadii baa ku xidhan reerihii way gadoodeen way dagaalamayaan taasi iyadoo waxaan saasaan isleeyahay waa qaab la explore garayn karo tanaad lahayd haddii ma garanaysaa marba reer lagu wareejiyo kursigeedu weyn baabayna dhibeen waa qaab la explore garayn karo one man one vote-ku had iyo jeer ma soo saaro qofkii ugu habboonaa maamulka ma soo saaro waxaana taariikhduna waa ka marag maanta Trump baa u ah Maraykanka soo ma waana tusaale wanaagsan yani sida anigu one man one vote-ku had iyo jeer natiijo wanaagsan usoo saaray walaalkeen maxaa la isku diidan yahay ayuu su-aal keenay waa yaa qofku daacadu yahay Canada waxaa jira laba magaalo jaara waxa la yidhaahdaa Calgary iyo Edmonton waa laba magaalo waxay isku jiraan 300 kilomitir marka masaafada Canada la eego maaha magaalooyin kale fog labada magaalo waa laba magaalo oo had iyo jeer isxinayo weyn waa lagu yaqaanaa marka haddana magaalooyinka xinka iyo tartanka ka dhexeeya kamay hor joogsan inay ka wada mid ahaadaan gobol maamulkiisa ay midkood weliba oo xarun u tahay kamay hor joogsan inay dal weyne ay ka wada qayb ahaadaan waxay la mid tahay matalan qofku aabihiina u jecel yahay hooyadiina u jecel yahay laakiin qalbi laba ma wada qaado soo ma odhan karno marka kee ku jira mid waa inuu baxee kee baxay marka